aad iyo aad baad u mahadsantahay agaasimaha Somali Irish Media sidaad ka dhawaajisay warbiximihii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya caabuqan coronaviruska dalkan Ireland waxay tilmaamayaan arrimo aad iyo aad u naxdin badan marka ay noqoto korarka uu sii kordhayo tirada dadka ee xanuunkan qaadaysa in caawa ugu dambeysa tirada guud marka la sheego ee la isku daro labada gobol waqooyiga iyo Jamhuuriyadda Ireland labadu waxay sheegayaan in ilaa 1,000 qof inay qaadeen xanuunkaasi midda kalena waxaa jirta qofkii afraad baa u dhintay xanuunkan oo la soo sheegay waxaan la filayaa sida uu sheegay madaxa dhakhaatiirta ee dalkan Ireland Dr. Tony oo uu waramayay RT inuu sheegay in xanuunkani muddo badan uu sii jiri doono oo ilaa bishan dhamaadkeeda la filaya ilaa 2,000 oo qof ay qaadaan waxyaalaha aadka u muhiimka ah ee la sheegay waxaa ka mid ah in dadka Ireland aanay runtii u hoggaansamin intooda badan marka ay noqoto taxadirka faraha badan ee la muujinayo oo wadamo kale oo European ay sheegayaan runtii marka ay noqoto habka dukaanaysiga iyo dadkiina weli iska wareegayaan oo runtii inkastoo ay jirto meelaha qaarkood in taxadir badan la muujinayo haddana in la meel mariyay in dadku ay aad iyo muddo badan laga shaqeynay si dadku ay u kala fogaan lahaayeen laguna wacyigelin dadku inay runtii ay socodka yareeyaan oo guryaha ay joogaan walow aan ciidamadu dibadda u soo bixin oo dadka la khasbaynin sida wadamada kale haddana laakiin imika waxaa bilaabmaya dhaqdhaqaaq la doonaya in dadka lagu xanibo inaanay soconin sida og tahay McDonald's oo ka mid ah maqaaxiyaha ugu waaweyn waddankan Britole toddobada ayay runtii ugu dambaysaa in la xidho oo magaranaysa waddankan aan la ogolayn in maqaaxi dambe ay furnaato oo iyagaa qaatay go'aankaasi McDonald's ka qaatay si dadka ay u badbaadiyaan xanuunkan dadka uu ku dhacayo waxa ay iskugu jiraan ilaa iyo iminka 3 qaybood dadka qaar waxaa la sheegaya 40 jir ilaa 35 jir inay 120 qof qaadeen halka 45 jirka ilaa iyo 54 kuna ay tirada labaad yihiin halka kuwa kale ee u dhaxeeya 35 ilaa 45 kuna ay tirada afraad yihiin ilaa iminka dadka magaranaysa ugu badanna waxaa la sheegaya inay yihiin kuwa 60ka kuduna waxaa jira dalkan dadka ku nool ee da'da dhaafay 70kii waxay gaarayaan 1 milyan bay gaarayaan taas oo runtii aad iyo aad loogu cabsi qabo waxaa kaloo jira ilaa 170 kun oo qof oo xanuunkan kasar ku dhacay ama kasoo kabanayo kuwaasoo runtii iyagana aad iyo aad cabsi weyn looga qabo in xanuunkan runtii uu riiqo waxaa kaloo jira caruuro xanuuno badan qaba oo ilaa 7 kun oo caruur oo xanuuno badan qaba oo runtii iyagu u nuglaan kara oo difaac jirkooda aad iyo aad u jilicsan yahay u nugul yahay oo xanuunkan iska qaban karinin waxaa kaloo jira in xanuunkan gobol kasta oo dalkan Ireland maanta laga helay oo meel aan magaranaysa xanuunkan aanu haynin aanay jirin waxaana khatarta ugu weyn laga baqayaa haddii xanuunkan sii socdo in dalkan Ireland runtii aanu sida wadamada kale ee ay Yurub runtii ay noqonayso markaa inuu raasado gargaar wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan waxa uu sheegay inay gargaar ay weydiisanayaan dalkan China oo ay iyagu 200 milyan oo ay ku bixinayaan sida ay u heli lahaayeen qalabkan lagu baaro oo runtii ay sheegayaan inay arrintan tahay arrin aad iyo aad u adag oo runtii u balaaran waxa kale oo la sheegayaa sababta ay China runtii u guuleysteen inay xanuunkan hakiyaan oo ay xanibaan waxay sheegayaan in dowladda China ay tahay dowlad weyn oo ka kharash iyo hantiba badan midda labaadna waxa u saamaxday bay yiraahdeen in iyadu ay tahay dowlad shuuci oo runtii amarkii dadka la siiyay ay dadku qaadanayaan halka dalkan ku nool ama Yurubta kale ku nool runtii yihiin dad xorriyad haysta oo sameyn kara wixii ay rabaan ilaa imikana waxa xoog la saaraya oo hadalhaynta ugu badan ay sheegaysaa in dalkan in la xiro oo dadku socodka la joojiyo oo dadka lagu khasbay inay guryaha joogaan hadaba xanuunkani waxa uu yahay mid dadka si fudud xanuunkaas dadka ay u kala qaadi karaan oo ay ku kala qaadi karaan salaanta ku kala qaadi karaan waxaana xanuunkani ka khatarsan yahay xanuunada kale in meelaha qofku taabto xanuunkaasi uu sii jiri karo muddo saacada taasna ay keeni karto in qofkii qaadi karo dadka waxa lagu waalinayaa runtii inay kala fogaadaan inay salaamin inay gacmaha maydhaan mar walba iyo inay mar walba xoojiyaan inay guryaha joogaan oo aanay bixin xanuunada markaa qofku isku arki kara waxaa ka mid ah xumad aad iyo aad u badan oo runtii aad iyo aad u culus waxaa sidoo kale qofku isku arki karaa inuu qufacayo sidoo kale waxaa jira in markaa qofku neefsi ay ku adkaanayso oo xanuunkan runtii waxa uu halis u yahay dadka xanuunada qaarkood qaba oo runtii ayaa la filaya macaanka iyo dhiigkarka iyo dadka xanuunada caynkaas qaba ayaa runtii looga baqaya inuu xanuunkan saameyn weyn iyo dadka da'da marka waxaa la sheegaya qofka haddii waxaan isku arko arrimaha caynkaas oo kale inuu guriga joogo oo runtii aanu soo bixin oo GB-giisa la xiriiro sidoo kale biyo badan aad iyo aad qofku inuu cabo oo jirkiisa mar walba ku ilaaliyo inuu nasto oo aanu guriga soo dhaafin dadka waaweyn runtii inay guryaha joogaan oo aanay soconin haddii uu soo arkana qofku inuu markaaba dadka kale aanu qaadsiin oo taxadir badan in la muujiyo ayay tilmaamaysaa marka wararka ilaa imika soo dhacaya waxay sheegayaan inay arrintu ilaa imika ay u socoto si xawliya oo dadku ay sii qaadeen xanuunkan ee wax ka soo horeynaya aanay jirin